asxaabta qiimaha badan oo ku soo dhawaada janalkeena. Maanta waxaan idin haynaa filim cajiib ah oo qosol iyo layaab iskugu jira. Sheekada filimkeenana waa nin iska caadi ah balse aanan lahayn awood tiro badan, balse galay shil baabuur kadibna noqonaya kalabar bini'aadam kalabarka kalena xayawaan. Haddaba aan ku bilowno safarkeena waalida iyo qosolka iskugu dhafan. ugu horeen aan la kulanno Marvin Mensch oo ah nin jilicsan oo jecel in uu noqdo booliis. Wuxuu ku nool yahay deegaan yar. Dadka deegaanka intiisa badan ma tixgeliyaan, sidoo kale way ku qoslaan markay isaga arkaan. Isagana Marvin mar waliba wuu ku guuldareystaa imtixaanka booliiska sababtoo ah isaga xoog ma lahan, tamar ma lahan, sidoo kale xitaa mararka qaar maskaxdiisa si fiican uma shaqayso. Noloshiisa oo idilna waxaa lagu tilmaami karaa qof leh riyo weyn oo haddana aan awood buuxda aanan lahayn. Mar walibana Marvin waa rajo iyo riyo ku nool. Markuu isdhaho ku dadaal jimicsiga, lugihiisa ayaa gariira. Xitaa marka la jooga xerada oo uu tababaranayo, waxaa bah ka dhacdhacaya qalabka lagu tababaranayo. Marvinna mar waliba wuxuu la yaabaa dhacdadan cajiibka isagoo keliya haysata. Habeenada ka mid ah, Marvin ayaa gaarigiisa soo kaxaysanaya, weliba wuxuu ku soo kaxaynaya waddo cidla ah oo isaga keligii socda. Si lama filaan ah isagoo gaarigiisa wadaya, shil weyn ayaa hal mar ku dhacaya. Si lama filaan ah gaarigii uu saaran hal mar ayuu rogmanaya. Sidoo kale noloshiisana waxay galaysaa khatar aad u weyn. Dadka degnaa deegaankiisana midna uusan iman si uu u caawiyo Marvin. Laakiin Marvin oo meeshaas ku dhibaataysan, si lama filaan ah waxaa hal mar soo muuqanaya Dr. Wilder oo ah dhakhtar ku takhasusay qaliimada xayawaanada oo aan caadiga ahayn. Sidoo kale Dr. Wilder isagu waa saynisyahan wax walibana samayn kara. Si uu u badbaadiyo Marvinna wuxuu ku samaynayaa qaliin qarsoodi ah, wuxuuna ku rakibayaa xubnooyin kala duwan oo laga soo kala qaaday xayawaano kala duwan sida indho fiiqfiiqan, dhigo dhagax ah, lugo xoog badan. Dr. Wilder xitaa Marvin wuxuu ka bedelay dareenka urka, wuxuu ugu bedelay dareen kale. Waxaana uu sameynayo Dr. Wilder wuxuu ka raadinayaa magac iyo caannimo. Sidoo kale haddii la isku dhafo xubnaha xayawaanada iyo bini'aadamka sida uu noqon lahaa qofka ayuu tijaabinayaa mar kale. Marvin ayaana jiifaya isbitaalka in muddo ah. Dhakhtarka wuxuu ka walwalayaa ninkaani waxa ku dhici lahaa markii uu soo tooso. Markii uu Marvin soo tooso, wuxuu dareemayaa sida qof cusub oo hadda dhashay oo kale. Wuxuu iska dareemayaa dareemo kala duwan oo cajiib ah. Wuxuuna bilaabayaa inuu u ordo si aan caadi ahayn, ogaanaya inuu u dabaalan karo sida kalluunka oo kale. Sidoo kale wuxuu ogaanayaa inuu meelaha u fuulfuuli karo sida goriilaha, xitaa wuxuu u boodboodi karaa sida kanguruuga. Dadkii horay ugu qosli jireen waxay la yaabayaan isbeddelkani cusub oo ku dhacay Marvin. Markaan Marvin waxaa ku bilaabmay xaalado layaab badan, dadka kalena ku qoslayaan ama qosol badan. Marvin ayaa markaan bilaabaya cuntada inuu u cuno sida xayawaanada kale oo kale. Sidoo kale Marvin wuxuu khayli dhaaminayaa sida daanyeerta oo kale, waxana uu urinayaa sida yeyda oo kale. Markaani Marvin wuxuu iska dareemay tamar iyo awood tiro badan, wuxuuna isku dayayaa inuu ka qayb galo tartanka booliiska ama tababarka booliiska. Markaani Marvin jimicsiga wuxuu u qaadanayaa si ka duwan sidii hore. Dadkii meesha joogay iyo isaga xitaa dhammaan way isla wada yaabayaan. Laakiin hal dhibaa jiro, isagoo sameynaya jimicsiga ayaa wuxuu arkayaa hilib wuuna ku boodaa sida yeydii oo kale. Intuu awoodaha cusub helayo Marvin wuxuu la kulmayaa gabadhaani oo lagu magacaabo Rihanna. Mar ayay Marvin iyo Rihanna ku kulmeen suuliga. Markay kulmayeenna isaga waa uu dhuusay, markaas uu ku dhahay adiga Rihanna miya. Markaani Marvin iyo Rihanna labadaba waxay isku qaadayaan dareen. Rihanna waa gabar aad u qurux badan, sidoo kale waa gabadha ugu ololeysa deegaanka ay degan yihiin. Si ka duwan sidii hore, markaan labadooda isku dhacayaan, yacni garabka isku dhufsanayaan, midka kale wuxuu bilaabayaa inuu u qaado dareen cajiib ah. Marvin mar waliba wuxuu isku dayayaa inuu noqdo qof caadi ah oo ku habboon Rihanna, laakiin mar waliba waxaa fashilaya dabeecadaha dadka oo dabeecadahaas oo keliya ayaa kasoo muuqanaya. Waxaa jira muuqaal layaab badan oo Marvin isku dayayo inuu cashir romantika la qaato Rihanna, laakiin isagoo jabi la qaadanaya Rihanna ayaa hal mar waxaa isbedelay dabeecadiisa, wuxuuna raashinka u cunayaa sida yeydii oo kale. Mar kale magaalada waxaa ka dhacaya weeraro aan caadi ahayn, laakiin dadka degnaa deegaankaasi waxay maleynayaan deegaankooda inuu soo weeraray xayawaano khatar ah. Sidoo kale raadadka iyo muuqaalka dadka dhaawacmay markii si loo fiiriyana waxay u muuqdaan midka Marvin. Sergeant Sisk oo ah nin booliis ah oo haddana aanan jeclayn Marvin ayaa wuxuu ku tuhmayaa dhibaato waliba oo halkaasi ka dhacday inuu ka dambeeyey ninkaasi Marvin ah. Kalabadh dadkii degnaa deegaanka waxay bilaabayaan inay ka fogaadaan Marvin, iyagoo uu arkaya in uu yahay dhibaato soo wajahday naftooda. Sidaasi ayuu Marvin wuxuu ku dareemayaa in uu keligii yahay oo ay dadkoo idilna ka fogaadeen. Marka la joogo deegaankiisa dadka dhexdooda, Marvin wuxuu ka noqday hal dhinac qof awood leh, dhinaca kalena wuxuu ka noqday qof laga shaki qabo. Ugu dambeyn hal mar waxaa soo booqanaya Dr. Wilder oo ah saynisyaankii ku sameeyey qaliinka Marvin. Wuxuuna sheegayaa runta, taasi oo ah Marvin isaga inuusan lahayn qaladka oo qaladka isaga leeyahay, taasi oo ah inuu ku sameeyey qaliin qarsoodi ah
weliba mid sharci dara ah. sidoo kale wuxuu sheegayaa midaani keliya inay ka ahayd tijaabo oo uu ku tijaabinayay xayawaanada xubnahooda ibni'aadamka, balse Marvin isagoo niyad jabsan ayuu wuxuu isku dayayaa inuu aqbalo hadalkaas, kadibna wuxuu la dagaalamayaa awoodaha gudihiisa kasoo burqanayaan. sidoo kalena wuxuu isku dayayaa inuu noqdo qof aad u wanaagsan oo aan awoodaha u isticmaalin si xun. Riyaanana markay ogaato sirta waa ay la yaabaysaa, laakiin qalbigeeda weli waxa uu rabaa Marvin oo ay u qaaday dareen aad u xoog badan. Dr. Wilder iyo asgariga waxay go'aan ku qaadanayaan inay qabtaan Marvin, weliba ayagoo u arka inuu khatar ku yahay deegaankooda. waxaana dhacaya islamarkaasiba dagaal, waali iyo buuq iskugu jira. Marvinna wuxuu bilaabayaa inuu adeegsado awoodihiisa, weliba isagoo ku difaacaya naftiisa. kadibna hal mar waxaa soo muuqanaysa Rihanna ayadoo bulshadu ayadoo cadeynaysa Marvin inuu leeyahay qalbi aad u fiican, inkasta oo uu yahay qof aan caadi ahayn. dadka qaar way fahmayaan dhibaatada Marvin, qaarka kalena way ku qoslayaan, balse isaga wuxuu dhahayaa dhib weliba nafteeda waan wajahayaa oo waan aqbalayaa. ugu dambayn filimka wuxuu ku dhammaanayaa isagoo Marvin dadkii oo idil aqbaleen oo ay taageereen, weliba isagoo ah kalabar xayawaan barka kalena bani aadam. dibna Rihanna waxay go'aansanaysaa inay la joogto inta noloshiisa ay ka dhiman, ayadoo arkaysa geesinimadiisa iyo daacadnimada uu leeyahay ama daacadnimada ka muuqata isaga. arinta filimka waa mid qosol leh oo haddana la yaab badan. qofkana waa inuu aqbalaa waxa uu yahay xitaa haddii uu ka duwan yahay dadka kale. tanina waxay ahayd sheekada buuxda ee filimka The Animal. sheekooyinka filimkani waa mid isku darsatay qosol, waali iyo aqbalaad qofka waxa uu yahay. haddii aad horey u daawatay filimkani, maxay ahayd dhacdada ugu qosolka badan ee aad ka xasuusato? ilaawi inaad muuqaalka like noo saarto, sidoo kale janaalkeenna aad subscribe soo dhahdo si aan idinla wadaagno khululaasooyin kale oo idin xiisa geliya. mahadsanidin.